هوي لقا أوراني ليوي أنتي معان mahad waxaa tahay aqoonyahan ku koray waddanka Norway oo fahmaya luqadda Norwegiga iyo Soomaaliga dawladda sida u shaqeysana fahmaya Soomaalida fahansi kartaa sheekadan ku saabsan baasaboorada dadka looga qorayo u shanti meesha ay marayso hada بسم الله الرحمن الرحيم أرد مر لبعض ما سند حسن إن هذا فرصة يجوز يسيد هذا عضا عن كوكولا قلبت مانتا أو جمعة إن وحوي ولا إن سيد دكتور تهي جمعيه تضبيط طبعا بشو أي حيد بوليس جواك يشير جرايد قبطي ودحي وان كلا من أرمها يشانت إن لقى جيو مواطنين نوروي أجانب كا إن حسها إن كلا بشو بقول كيف بقول معها Soomaalidu si qaldan bay u fahamtay jaraa'idada isku marinayaan warar qaldan wiishantkii waa laga laabtay laakiin calaamad waxa kugu taala David Stian la yiraahdo ee lagu dhajin jiray nimankii Yuhuudda halka laga dhajin jiray Stian tul lamida ku taala baasaboorada Norwegianka ee Soomaalida la siiyo amba ajaanibka koobiyo sodanka dalka yimid waxa lagu dhajinayaa Soomaaliya waxa weey waa qalad nin walba magaalo ku dhashay nin dalku ma dhalan nin walba magaalo ku dhashay degmo ku dhashay geed hoostii ku dhashay waa la yaqaan nin walba intuu ku dhashay marka in la iraahdo ubadkii missionaarada ee Norwegianka ay Kenya ku dhashay iyaga waxa loogu qoray Nairobi ee Kenya ku dhashay Nairobi ku dhashay Kenya ka yimid laakiin waa Norwegian ya baasaboorkiisa nooshka loogu dhijin adigii Soomaaliga ah amba adigii Kenyaatiga ah ee ka yimid Kenya haddaad nooshka noqotid waxa lagu dhijinayaa Kenya waxa weey cadaalad darra meesha ka jirta waxaa jirta in shuruucdii dalka ayaa lagu tarkiifalaya marka Soomaalida iyo koob iyo soddonka kale dal ee kale in ay isku tashadaan oo meel isugu yimaadaan oo xuquuqdooda ay horta wax ogaadaan waxay xaq u leeyihiin dalkan iyo wax dalkani xaq iyaga ku leeyahay sida awgeed marka waa lagu ixtiraamaya laakiin haddii aad waxba walba ka hayn hal walba meesha is dhigtaa lagu qalaa marka anigu walaalahayga Soomaaliyeed waxaan u soo tabinayaa weli فريقما قدنا محاه هيدا حرر كان نليش يقولش أنت جواس لا حل كي يجون لكن ولا ملضحي وحلقوا ملضحي Soomaaliya اللي يري ده Soomaaliya قف نين كل شاجر مقدشو نين كل شارجي ساجر نين كل شاجر بورا ماجر نين كل شيء عاجر بوصاص وقرنا كل شيء كل قال كعيب أنت بهذه اللي Soomaali حلقوا كيم بالله ما قرنا بريت هلا وحكوا يقدر ما بنقانا ضل كعجة marka waxa leedahay magaaladii ma lagu qorayo qofka uu ka yimid ee waxa lagu qoraa meel Soomaaliya labada meelood magaaladii uu ku dhashay Soomaaliya lagu qorayaa dalku ka yimidna waa Soomaaliya taas macnaheedu maxay tahay marka qofka magaaladiisa hadii lama garanayo ka dhigan tahay waa isla yuushandgiun waa la maldahay le dhar baa loo xiray yuushandgi adabtiif baan waa laga laabtay booliisku wuxuu jimciyay dhaweed ka hadlayay waa dadkaas iyo dadka ay missionaaradu dhaleen iyo dadka ay safiiradu dhaleen iyay ka laabteen waxa danahooga way ka laamayaan laakiin waxa danaha dalka dhan xeerka dalkan la jooga lagama laamayo waayo ninkii saxday Siciid Bidal laakiin waxa loo baahan yahay Soomaalidu inay taa ka tashato inay midowdo inay qabyaalada ka tagto inay Ilaahay ka cabsato Ilaahay isku xidho وجعلناكم قبائل شعوبا لتعارفوا بير إلهي إن نسكو قرنا لكن إن نسكو دلنا ما إن نسكو حاسدنا ما إن نسكو حمينا ما إن لقطة نسكو دقنا ما وحلو بهاي ورماشن Soomaaliya wixii ka dhacay iyada u tal waan ka maqnaanay dibadda joognaa qurbaawi baan wada nahnay dad qurba joogaan nahnay waxa loo baahan yahay inaan isu heshino dad badan baan ku jirnaa qoomiyada badan baan ku dhex jirnaa laakiin inaan isxafidna loo baahan yahay inaan danaheena guud dhowrano difaacna loo baahan yahay way buuxda Soomaalidu waa 41,000 ma waxa laga waayay Soomaalida inta leeg dad qabta Soomaalidu way lahaayeen oday dhaqameedyo waxay lahaayeen sharaf iyo karaamo iyo kala dambeyn ma dadka inta leeg oo dhan baa laga waayay haddaan taa waa laga waayay ku rabeenaalana laakiin walaalayaal walaalkii loo xiriyo aadna soo qaysay Soomaali tiraay بريتول نينك كلا غريغ دب دریسكاغا هيستا دبك دریسكاغا هيستا بريتول adiga waa ku xayaayo ogow soo dareera mid ha noqono wardalad ha samaysan war Ilaahay aan ka yaabno ubadkeena iyo odayadeena daada iyo intaba han xafidano iyo dumarkeena waa taladaan walaalahayda Soomaaliyeed u dirayo waxaan leeyahay baasaboorkaasi wali waa iska sidiisii uu fikirkan qabo marka kale hadaan tu kala ku darana waad u jeedaan 100 qoys baa loo yeero Soomaaliya oo la leeyahay baasabooradiina keena kii nooshka ahaa iyo buusatin tilaatalsi waxaana in laga hadlo oo Soomaalidu difaac yeelata loo baahan yahay walaal inaan meel isdhigno ma inaan qabiil isku eegno naga daawaa reer kaaya inaan iraano maaha
waayo haddii maalinba mid gaalku Soomaali buu noo yaqaanaa maalinba mid haddii qoorta loo gooyo berina aduun bay ku imanaysaa laba waxa kaloo jirta 500 oo hadda cusub oo sharciyadii loo diiday Soomaaliya waa nabad la leeyahay maantadan u jeedna usbuucii hore bay xamar qarax ka dhacay meel kastuu qarax ka dhacay dhibaato ay jirtaa marka dadka in Norwegian in sawir been loo sheego la yiraahdo dalkii waa nabad ay sharciga masaakiinta doonaha soo maray ee badda ka soo talaabay u diidaan annaga nama qabato waxaan rabnaa Soomaalidu inay dadkaasina wax u qabato laba waxa kaloo jira dhalin badan oo la gurtay oo 5700 oo maxay ahayd baan afaan ku qaatay dadkaasi dadkeeni way waa dhiigeeni waa ubadkeeni Soomaalidu maxay u dhaxaysaa war naga daa war reer qusacay reer qarac iyo reer maxay qansacay reer qurac ilmahaasi annagu uma dacwoonino ma aha taas waa laga roon yahay horta koow diintaana farday waa dad muslim laba waa dad dhiigeeni oo dadkeeni marka waxaan u baahanahay walaalayaal haddii Soomaalinimo dhibic biyo oo Soomaalinimo dhiigiina ku jirto walaalayaal inaan midowno culimada inaan midowno aqoonyahanku inaan midowno dumarow inaan midowno dal shisheeyaan joognaa ee dantaan nabadi inaan midowno waxaan kaloon ku darayaa way la socoteen gabadh xabad lagu dhuftay halkayga xagu maray askariga xabad lagu dhuftay waa la iska sii daayay waxa weey walaalayaal dalka kan haddii aan sii joogayno 41 qof baanu nahay qof baanu nahay ambadade golaha baarlamaanka ka qayb galno codkeena hal la maqlo sida Ingiriiska Soomaalida joogtay Mareykanka joogta Pakistaanigu 3 baa ugu jirta golaha baarlamaanka Norway maxaa anaga noo diiday annaga ka tiro badanay waxa weey walaalayaal waraan xisaabtano Soomaalidu way xisaabtami jirtay geela way wada jiran jirtay wayna kala jiran jirtay haan wada jirana geela maanta meel lagu kala jirta ma joogno dhulkeenii weynaa ma joogno marka waxa weey Soomaaliyay hal la soo dareero hal la midoobo danaha guud hal laga dhaqaaqo danaha guud marka la difaaca danta gaar la hela dibtas maanta Soomaalida dunida ku joogta haysata waxay xasuusisaa sheeko markaan yaraa layga warrami jiray oo layga sheekeyn jiray ee ahayd sheekadii saddexdii dibigii guduudnaa iyo dibigii madoobaa iyo dibigii caddaa ee la kulmay aarka ma fasilayo arintaas laakiin dadka weyn way garanayaan ee daada jira laakiin waxaan uga gun leeyahay sheekada un baan rabaa inaan anu ka sheekeeyo dibiyada waxa qabsaday markay aarka la kulmeen iyagoo gal xareeda ag jooga gal xareeda ninkii garan baa galka garanay iyagoo gal xareeda dhex jooga oo maxay ahayd daaqay oo Ilaahay cawska ku manaystay ayuu aarku intuu aarku amba libaax nimba siduu yaqaanay intuu aarku soo tamashleeyay ayuu dhaximid saddexdii dibi buu yiri warnimo yahow daaqu waa nagu yar yahay kan haddaan dibigan guduudan haddaan ku taga ka warrama waa kii madoobaa kii caddaa ku leeyahay war suquuqul buu nagu galiyay raashinkii ku tag bay dhahay halkii buu ku tagay kii madoobaa kii guduudnaa dibigii waxa haray labadii dibi kii madoobaa kii caddaa dhowr usbuuc kadib buu soo laabtay markaasuu yiri libaaxu war hadda waa ka roobku sii guraya roobku ma badaaye galkuna waa ka sii guraya daaqsiguna waa ka yaraaday waa dibigii madoobaa buu ku leeyahay kacad halkii mariya ma ka fasaxaa buu yiri haa buu yiri markaasuu kii caddaana ku leefay usbuucii dambe iska soo tamashleeyay wiilkaasoo soo xaragoonaya yaa si yar oo fudud dibigii madoobaa ku yiri haye isdiyaari haddaan adiga ku cunayaa markaasuu yiri dibigii madoobaa dibigii cadda halkuu maray maalintaan ogaa ayaan dhintay hadda ma dhimanaysa kay cunbuudha Soomaalida dunida ku nool maanta taaba haysata arintaaba yaa soo waajiburtay oo soo fool saartay Ilaahay baa yaa farash Ilaahay baan u bariyaa inuu ka saaro wallahi waan soomanahay waa maalin jimca Ilaahay baan u bariyaa Soomaalida koonkan ku nool dibad iyo gudaba Ilaahay inuu bagooga burcad isku mariyo Ilaahay inuu walaalo ka dhigo aaba midaataan ka soo wada jeednaa hooyo midaataan ka soo wada jeednaa in la xiriiriyo wadankeena khayraad baa buuxa macdan baa buuxda petrol baa buuxa waxa buuxda maxay ahayd in wax walba Ilaahay ku manaystay khayraadka dunida yaala حسدك وناس كدينا حسدك هدوب بطو وحاس وايريدا نمعدا نسقاطا حسدك هاس كدين قبيالده هاس كدين هاسي ولا لا اي Soomaalinimo isku jeclaano waana ka dhirgeynaa malaayga buuxa badda macdanta dhulka buuxda
balatiniumka iyo diamondka iyo gaalka u horeeyo kuwa kale macdanta kale ka tag maxay ahayd petroleumkii baa ku jira dhulka intaasoo dhan webigii labadii webi Shabeelle iyo Jubba mee waxa laga samayn karaa tamar turbine energy baa laga samayn karaa waxa laga samayn karaa Baraawe iyo Marka iyo Hoobiyo iyo Eyl iyo Garacad iyo maxay ahayd Boosaaso iyo maxaan ku kor u sii bax birbira kor u sii bax lugahaya kor u sii socolow iyo cadda hoos u soo deg Xamar Baraawe Marka Kismaayo ilaa Raas Kaambooni waxa la dhigi karaa maxay ahayd tamarta hawada birihii dhaadheeraa baa lagu xidhi karaa oo tamar baan ka heli karnaa war ilaahay ha laga yaabo war islaamnimada ha loo soo noqdo war Soomaalinimada ha loo soo noqdo dalku waa ina deeqa degmo kaliya taana deeqdo mise ma waxaad rabtaan inaan ku dambayno sheekadii qisadii saddexda dibiyeen hadaayay ka soo hadlay ilaahay waa noo bilaari Soomaali waxay ku nooshahay 5 gees weey Soomaalidu waana deeqa wax walba walaalayaal annagii da'da yar ahayd dhulkan joognay waxa la yiraahdaa waxa la weydiiyaa dal mar baa la weydiiyaa dalku wuxuu ka dhigan yahay anoo cunug yar oo sabiya oo 14 sano jira ayaa Yurub imid laakiin dalku wuxuu ka dhigan yahay garanaya ninka dibad jooga garanaya dalku wuxuu ka dhigan yahay waxaan kula dardaarmayaa nimanka hoggaanka noo haya majaraha noo haya walaalayaal wax wanaagsan oo ku soo laamano oo foolka ku soo hayno maroodigu waxa la yiri meeshuu ku dhimanayo ayuu foolka ku soo hooyay dalkayaga rabnaa inaan ku dhimanno walaalayaal ilaahay inuu nagu dilo dalkayaga si nabada annagu wax u tarnay maatidayada iyo dadkayaga iyo xoogayagana waxaan shaqaysanna iyaan rabnaa mustaqbalkee walaalaha iyo dalkayaga noo hagaajiya idinka maanta masayrka noo haya wabillahi tawfiiq